halkan iyo xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxa maanta ka qabsatay khudbadii dastuuriga ahayd ee loo ballansanaa ee uu soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu howlka soo galay khudbadiisana uu hore ka galay waxa uu ku soo qaatay dhinacyada ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga, horumarinta dalka iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay dalka uu ku jiray muddooyinkii u dambeeyay. sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu khudbadiisana dastuuriga ahayd ku soo qaatay arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii u dambeeyay ay shacabweynaha Soomaaliland dhagta u taagayeen. waxaa intaa u dheer inaan xanuunkii COVID-19 oo boqolkiiba mar adduunka soo mara sida culimada saynisku sheegtay oo riiq dheeraaday adduunkana kala xidhay baac mushtarkii iyo dawladihii oo badxiran ka dhacay waxaana si wanaaga in Soomaaliland ay ka badbaaday inta badan dhibaatooyinka uu geystay inkastoo saameyn ku lahaa dhaqaale iyo cudur dad badan inaga dilay Ilaahay u naxariista haddana Soomaaliland soo dawladaha kale u riiqay umur riiqin waxaanay ku timid dadaal badan oo wada jira oo aynu mudnaanta siinay wixii xarun ku dhacay badbaadintooda iyo isu gurmadkeena iyo istaageerideena waynu ka badbaadin riiqdii cudurkana doonto waayo wax kasta oo aynu cunno iyo wax kasta oo aynu nolosheenna u adeegsano dibadda aynu kala soo degnaa waxaynu ognahay in aynu wax yar beerano warshado aynaan lahayn halkaana haddaynu nahay dadka reer Soomaaliland dawlad iyo shacbiba iyo qurbajoog iyo qolqoljoogba waxa inagu soo fool leh hawl culus oo ah inaynu u guntano sidii loo maareyn lahaa waxaan ku talinayaa in maalqabeennada dalku ay maalgeliyaan wax soo saarka siiba cuntada daruuriga ah oo laga yaabo waa dhowna cili adduunka ku gasho soo iibsigeedu dhaqaalaheena markaanu ka hadalno hadda halku marayo iyo saynu nahay iyo adduunka dhibaatooyinka ka jirto mudana yariyo marweyn labadii sane aynu soo dhaafay qaranku waxa soo food saartay hoos u dhac dhaqaale iyo wax soo saar taasaynu kala sidnayn caalamka oo dhan taasi oo sababay cudurka la yiraahdo COVID-19 dhibaatadaas dhaqaale ee caalamka ka dhacday inagana in saameysay ilaa xad inkasta oo aynu la qabnay adduunka haddana waxay Soomaaliland qayb ahaan kaga badbaaday siyaasadda xukuumaddu u dhigtay sida loo maareynayo dhibaatooyinka jiray ee riiqda COVID-19 waxaanu qaaday talaabooyin soo socda casriyeynta iyo horumarinta hanaanka iyo kaabayaasha dakhliga ururinta kor u qaadida dakhliga cashuuraha bariga iyo hoos u dhigida ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada kalsoonida dadweynaha ee cashuur bixinta kobcinta dhaqaalaha guud ahaan toosinta maamulka kharash bixinta iyo daafurnaanta isticmaalka miisaaniyadda qaranka waxay xukuumaddu dhaqan gelisay habraacyo caalami ah oo xoojinaya la dagaalanka musuqa iyo la xisaabtanka xatooyada hantida qaranka kuwaas oo lagu hagaayo nidaamka xisaabaadka hay'adaha dawladda iyo maamulka maaliyadda waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay laga maalgeliyay 89 mashruuc mashaariicdaas oo ku kacay qiimo lacageed oo dhan 163.7 bilyan oo shilinka Soomaaliga ah markaan taa kaga tago arrimaha dhaqaalaha iyo waahe doorashooyinka marweyn sanadkii hore gorihii hore tagay waan idin sheegay wanaag baan iska sagootinay waxaana muujiyeen marka hay'adaha qaran ee waaweyn ay maskaxda ka midayaan mabaadiida qarankana dhisay ay ka midaysan yihiin dooda iyo muranka adigana waa xalaal ee ujeedadooda isla tallaabo qaadaan wanaagga soo baxaya waxaynu ka garanaynaa sida wanaagsan ee hore u tagay doorashadii wanaagsaneed noo dhacday nabadii shacabku ku codeeyay caalamku soo ugu bajeertay maqaamka siyaasiga ee Soomaaliya halkay gaarsiisay doorashadaasi
waxay muujinaysaa is-afgaradkii hay-adihii doorashada iska dhexaysay gaar ahaan golayaasha sharci dejinta xukuumadda amniga axsaab iyo dadweyneba markii la is-afgarto wax wanaagga aynu gaadhno doorashadii hore waxay nagaga baxday lacagtii nagaga baxday waxay ahayd lacag ku dhow 132.6 bilyan oo u dhiganta ku dhowaad 21 milyan 5 kun baa adduunka nagu caawiyey inta kale innaga qaranka Soomaaliya baa bixiyey waxaan ku gaadhnay guusha aynu gaadhnay haddaynu taa tusaale ka soo qaadano waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo golaha cusub la doortay ee wakiilada sidoo kale waxaanu ammaan iyo bogaadin jeedinaynaa golihii banneeyay kuraasada oo si mirgale hawshaa inoo tabantaabiyey xisbiyada iyo ururada oo ku yimaada marka ay xisbiyadu howlgelayaan waxaan u baahanahay xisbiyadeenu waa curdin adduunka 600 sano jiraan kuwan ku dayana kuwa Mareykanka 300 sano marayaan kuwa Ingiriisku 600 ka way marayaan kuwa ugu dhow dowladahan ee yaryar ee dowladii 100 dheeraad way marayaan xisbiyada Afrika ugu daaweyn SSC waa kamid South Africa 100 way maraysaa marka inaga xisbiyadeenu waa curdin wax wala curdin dhibaato suuray dowlad baan ku seenaa ka caafimad ku jiraa ka hoggaan ku jiraa marka xisbiyada canaano maayo intii ay soo jireen ba waynu ku bogaadinaa xisbiyada oo dhan nabadgelyo ku codeen talaabo marqaan intaas madaxweynaha bedelay baarlamaankii uga jeer marayna dowladda soo bedelay waa waxay lagu maadiyaan laakiin haddana mar walba waa inaan isu cadaynaa halkeenu higsanayna iyo ceebaynu doonayna xisbiyadu laba hal baa raba inay abuuraan qarannimo oo inkastoo dadka xisbiyada hogaamiya aan dhammaantood ogahay oona iyagu mas'uul ka ahayn axsaabta codka u dhacaya qabaliga inaynu ka saarrabaynu u baahannahay waxaan hubaa nin kastoo xisbi hogaaminaya ama xubin gobol dhexe ah ama fulo xisbi inuu doonayo oo u dan tahay inuu gobolada oo dhan u midoobaan oo cod qaran helo ma xilaa soo baxay laakiin dhaqankeena iyo duruufaha marayno ayaa ina jiidaya oo codkeena hab qabali u ridayay taasi waxay u baahan tahay inaynu aad iyo aad ugu adkaysano waana dhibaatada nala soconayso inuu doonayo inuu jiido laba xisbiyada haddii dhaqaalahooda aanay xor u ahayn dhibaatooyin baa dhacaysa qarankuna baa khatar galaya xisbiga haddii dhexdiisa gacan sheeye soo gasho oo dhaqaalo geliso dee cidda dhaqaalo gelisa madeeday ka furaysa marka waxaan doonaynaa ururka siyaasadeed soo socda iyo xisbiga jira iyo xisbiga soo socdaba inaynu meel uga soo jeedno xisbiga dhaqaalihiisa iyo go'aamadiisa inay ku eg yihiin muwaadiniinta Soomaaliland oo qura oo sheey gacanta kula jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa waa heen waxay noo noqotay meel aynu ka baranaa cashar ee ma aha meel aynu u calaacalno oo aynu ahno dhibaatooyin baa dhacday waxaan qabaa inuu ahaa cashar layna barayay inaanu isku horsoonno oo aanu ka dhisano على قناة تلفزيون كالسن حلقيسان